habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka wararka Soomaalida qodobada caawan idinkuga hayno waxa kamid ah Puntland oo dowladda federaalka ku eedeysay in ay hub keentay gobolka Mudug isla markaasina ay bilowday qorshaha ay isku difaacayso ururada bulshada rayidka oo baaq dheer ka soo saaray khilaafaadka hareeyay doorashooyinka dalka iyo hardanka mucaaradka iyo dowladda dhexe faafahin ka soo baxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya safar tahriib halis ku jiray oo lagu qabtay dalka Zambia iyo xukuumadda Soomaaliya oo ansixisay xubnaha magacaabista golaha sare ee garsoorka dalka dhammaan qodobadan iyo waxay nagu soo kordhayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka Soomaalida soo dhawaada mar kale daawadayaal wararkan waxaan ku bilaabaynaa Puntland halka oo maamulku uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu ku eedeeyay inay hub keentay gobolka Mudug isla markaasina sheegay in ay bilaabeen qorshaha ay isku difaacayaan maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay wado qorshaha lagu qalqalgelinayo sida uu hadalka u dhigay amniga gobolka Mudug kadib markii uu sheegay in diyaarado hub siday ay ka dejisay magaalada Gaalkacyo wasiirka xigeenka amniga Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Dujaanah ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in ay isdifaacdo haddii la isku dayo in xaaladaha amni la qalqalgeliyo lana carqaladeeyo waxa uu ku dooday in hubka la keenay waa sida uu sheegashadiisa ku sheegay Gaalkacyo uu yahay mid ay bixisay dowladda Turkiga isla markaasina ay Puntland hayso xog ku saabsan halka loo waday iyo cidda la qorsheeyay oo loo qorsheeyay in lagu hubeeyo sidoo kale Dujaanah waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay wado qorshe lagu wiiqayo awoodda dowlad goboleedyada isla markaasina sheegay in Puntland iyo Jubaland ay yihiin maamulada kaliya ah ee wali si buuxda u taagan sida uu hadalka u dhigay anagu waanu isdifaacaynaa runtii sida muuqata dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka waxa ka dambeeya Puntland iyo Jubaland duulaanka qaawan baana haddana lagu soo qaadaya waxaan mooganahay maahan waa mid arinta ka dhalata ama waxa ka dhasha mas'uuliyadeeda qaadan doonto dowladda waqtigeedu dhamaada ayaa yiri wasiir Cabdiraxmaan wasiirka xigeenka waxa intaas oo ku daray in Puntland ay ka warqabto dhaqdhaqaaqyada la xiriira hub iyo ciidamo uu sheegay in laga qorayo deegaanada Puntland isagoo uga digay dowladda dhexe in ay isku daydo wax kasta oo horseedi kara sida uu hadalka u dhigay qalalaasi amni oo ka dhaca Gaalkacyo ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya kama aysan hadlin eedeymaha ay soo jeedisay Puntland ee la xiriira hubka la sheegay in la geeyay magaalada Gaalkacyo iyo qorshaha lagu sheegay in lagu weeqayo awoodda dowlad goboleedyada markaan ururada bulshada rayidka ayaa baaq waxay ka soo saareen khilaafaadka hareeyay doorashada dalka iyo hardanka mucaaradka iyo dowladda dhexe ururadu waxa maanta bayaan ay soo saareen iyo war-saxaafadeed ay kaga hadleen khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada mucaaradka ee ku saabsan hanaanka doorashooyinka dalka iyagoo ku baaqay in la gaaro doorasho heshiis lagu yahay hufan isla markaasina ay wada aqbalaan dhammaan dhinacyadu bulshada rayidka ayaa sheegay in ay daraasaad ku sameeyeen hindisayaasha doorasho ee ay soo jeediyeen golaha mustaqbalka nabad iyo nolol iyo golaha midnimo qaran kadibna ay soo jeediyeen hanaan ku meel gaar ah oo ku salaysan deegaan doorasho iyo nidaam axsaab ah iyaga oo codbixiyaashu ay si toos ah u soo dooranayaan murashaxiinta golaha shacabka sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa ku baaqay in dowlad goboleedyadu door muuqda ay ka yeeshaan hirgelinta doorashada lana sameeyo hanaan madax bannaan oo lagu xalinayo cabashooyinka isla markaasina lagu xaqiijinayo habraacyo hufan oo lagu maamulo diiwaangelinta codbixiyaasha codbixinta iyo ku dhawaaqista natiijada Cabdiraxmaan Muxyidiin Shaatax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada soo baxay xaqiijinta ka qaybgal wax ku ool ah oo dowlad goboleedyada ku yeeshaan hirgelinta geedi socodka doorashooyinka oo ay ku jirto isku dabaridka iyo xaqiijinta amniga doorashada 2 hanaan madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo laguna xalliyo cabashooyinka iyo khilaafaadka doorashada ka dhasha 3 hanaan madax bannaan lagu kalsoonaan karo oo lagu xalliyo cabashooyinka iyo khilaafaadka doorashada waa qodobka daaya ku soo qodobka labaad waaye qodobka saddexaad habraacyo hufan la isla ogol yahay oo lagu maamulayo diiwaangelinta codbixiyaasha codbixinta tirinta codadka iyo ku dhawaaqista natiijooyinka in la xaqiijiyo ilaalinta xuquuqaha siyaasadeed iyo matalaad loo dhan yahay
iyadoo la adeegsanayo damaanado ku meel gaar ah oo dhowraya xuquuqda ka qaybgalka siyaasadeed ee dhammaan qeybaha bulshada gaar ahaan kuwa aan matalaadda siyaasadeed lahayn sida haweenka iyo qeybaha kale ee u nugul in laga reebo geedi socodka siyaasadeed ee ilaalinta nidaamka 4.5 tallaabooyin cad oo la dhaqan gelin karo oo lagu xoojinayo laguna xaqiijinayo matalaadda siyaasadeed ee dadka naafada ah. qodobka u dambeeya oo ah in la helo korjoogteen caalami ah iyo mid gudaha ah taa oo ay fulin doonaan xubnaha bulshada rayidka. bulshada rayidka ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dhinacyada siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo mucaaradkaba inay ka gudbaan khilaafaadka siyaasadeed ayna gaaraan isafgarad ku salaysan tanaasul iyo wada hadal si dalka loogana qabto doorasho loo dhan yahay oo sharciyad iyo kalsooni bulsho ku dhisan. faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dad Soomaali iyo Ethiopian oo safar tahriib halis ku jiray kuwa oo lagu qabtay dalka Zambia. dowladda dalka Zambia ayaa waxa ay sheegtay inay qabatay 7 qof oo isugu jiray muwaadiniin Soomaali iyo Ethiopian kuwaasi oo si qarsoodi ah ugu safray gaari rakaab ah oo ku sii jeeday xadka dalka Zimbabwe sida uu sheegay maareeyaha xiriirka guud ee maamulka canshuuraha dalkaasi Zambia Oliver Inzala. ciidamada ayaa gaariga ku qabtay magaalada Kibere Mboshi xilli uu ku sii jeeday xadka Chirundo oo kala qaybiya dalalka Zambia iyo Zimbabwe. saraakiisha ayaa sheegay in markii ay baareen gaariga ay gudaha ay ka heleen 7 qof oo ku dhuumanayay jawaano bariis ah iyada oo dusha sare lagaga sii daboolay agabyo kale oo lagu qarinayay. darawalka gaariga iyo dhammaan muhaajiriintii la qabtay ayaa loo gudbiyay waaxda socdaalka ee Zambia halkaasi oo baaritaan dheeraad ah ay ka socdaan si loo ogaado duruufaha tahriibka iyo cidda ka dambeysay abaabulkaasi. dowladda Zambia waxay sheegtay in dalku uu weli marin muhiim u yahay isticmaalaan tahriibayaasha ka yimaada dalalka geeska Afrika kuwaasi oo u socda dalka Koonfur Afrika. inta badan dadka tahriibka ah ayaa adeegsada gaadiid xamuul ah si ay uga gudbaan baraha kontaroolada ee wadooyinka waaweyn ee dowladaha ay ka gudbayaan. dhacdadan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo ay sii kordhayaan dadaalada ay wadamada gobolku ku xoojinayaan la dagaalanka tahriibka dadka iyo shabakadaha fududeeya socdaalka sharci darrada. ugu dambeyntiina xukuumadda Soomaaliya ayaa maantay waxa ay ansixisay xubnaha magacaabista golaha sare ee garsoorka dalka. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maantay waxa ay meel mariyeen 4 xubnood oo magacaabis ku noqonaya golaha sare ee garsoorka kadib soo jeedin ay gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyada oo talaabadani lagu sheegay mid lagu hirgelinayo qodobka 145aad ee dastuurka federaalka ee 2026. shirka golaha wasiirada oo gudoomiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa cod aqlabiyad leh lagu meel mariyay magacaabista 2 qareen sare iyo 2 xeel dheere sharci kuwaasi oo muddo 5 sano ah ka mid noqon doona golaha sare ee garsoorka marka la soo dhameystiro habraacyada ansixintooda. xubnaha la magacaabay ayaa kala ah Maxamed Deeq Macalin Aadan, Maryan Sheekh Cismaan, Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil iyo Cabdulqaadir Cali Macalin. golaha sare ee garsoorka ayaa sidoo kale ka koobnaan doona xubno xilalkooda ku imaanaya si toos ah kuwaasi oo ay kamid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha maxkamadda dastuurka, xeeraliyaha guud ee qaranka, gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha. dhinaca kale golaha wasiirada ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii golaha tacliinta sare iyada oo xilkaasi loo magacaabay Maxamuud Axmed Jimcaale. kulanka waxaa sidoo kale lagu ansixiyay hindisa sharciyaadka dhaqanka iyo farshaxanka halka heshiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo Cumaan oo ku saabsan gaadiidka cirka iyo axdiga dhalinyarada Afrika lagu xoojinayo shirkaasi lagu meel mariyay. waana kulan dambe nabadgelyo jimco wanaagsan.